Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waa axad ay taariikhdu ku beegantahay 12 bisha 7 ee July sanadka 2020. Qodobada wararku waaweyn ee xilligan aan idin haynana waxa ka mid noqon doona madaxweyne Farmaajo oo ku farxay khudbadihii shalay ay shirka dhuusamareeb ka jeediyeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo qorshe ka dhana madaxweyne Farmaajo oo uu maleegayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Xog ku saabsan laba qodob oo isku raaceen madaxda maamul goboleedyada iyo qodob ay Puntland wadato oo la ogaaday. Madaxda maamul goboleedyada dalka oo u midoobay qorshaha Farmaajo iyaga oo la saftay ra'iisul wasaare Khayre xilli maanta la filayo in ra'iisul wasaaraha dalka uu gaaro dhuusamareeb. Wararkii ugu dambeeyay iyo qorshayaasha Farmaajo iyo Khayre ay kala wataan ayaan idin la wadaagi doonaa. Inta uu la egyahay dakhliga dawladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho oo la shaaciyay iyo xog laga bixiyay sida lacagahaas loo bixiyo. Duqa Muqdisho Cumar Filish oo seeftiisa banaanka dhigtay xilli uu maalmaha soo aadan shaqada ka ceyrin doono gudoomiyaal degmo. Faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya sarkaal sare oo al-shabaab u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo toogasho lagu dilay. Ilaalada wasiir ka tirsan xukuumadda Khayre oo si bareer ah wiil dhalinyaro ah ugu dilay magaalada Muqdisho iyo carag ka dhalatay dilkaasi. Iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo iska diiday inay garoomada diyaaradaha dalkeena ay ka degto diyaarad hub u siday dawladda Masar iyo xog cajiib ah oo ku saabsan xiisada Masar iyo Ethiopia. Intaas aad daawateen daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn ee xilligan iminkana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay channelka subscribe inoo saar oo gambaleelka furo si aad u hesho macluumaadka xogaha iyo warbixinada alaab halkan aan soo gelino. Markale kulanti wanaagsan daawadayaal. Waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaasi ku farxay khudbadihii shalay ay shirka dhuusamareeb ka jeediyeen madaxda dawlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha dalka Farmaajo ayaa soo dhaweeyay shirka ka furmay magaalada dhuusamareeb isaga oo markaasi ku sii farxay hadaladii ay shalay jeediyeen madaxda dawlad goboleedyada dalka kuwaas oo u muuqday kuwo aan xanaf lahayn. Hogaamiyaasha lagu bartay inay madaxweynaha si aad u dhaliilaan sida madaxweynaha maamulka Puntland iyo kan Jubbaland ayaa iyagu ka gaabsaday inay ku dheeraadaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa ayna kaliya ka hadleen ujeedada shirka iyo in loo baahan yahay in doorashada dalka ay waqtigeeda ku dhacdo. Madaxweynayaasha Dani iyo waliba sidoo kale Madoobe ayaa iyagu aan si aad uga hadleen eedeynta ay dawladda federaalka Soomaaliya leedahay inkastoo ay yara taabteen haddana ma aysan ku sii fogaanin filla Soomaaliya. Farmaajo ayaa aad uga farxay warka ka soo baxay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ee iyagu ku shirsan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug. inta ugu badan waxa ay madaxweynayaashaasi ka hadleen sida loogu baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku dhacda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qorshe dhabar jabina waxa uu kala kulmayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa isagu si hoose uga soo hoos baxay madaxweyne Farmaajo isaga oo sheegay in aysan jiri doonin wax muddo kordhina taas oo madaxweyne Farmaajo uu ku taamayay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa arinta ka soo yeertay Khayre waxa ay ku noqotay lama filaan isaga oo doonayay in dalka uu sii hogaamiyo xilli sidoo kale damacsanaa in ra'iisul wasaare Khayre uu meesha ka baxo isagoo uu ku baxay isbedel siyaasadeed balse taas waxa markaasi biiqa uu ku shubay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo isagu damicii Farmaajo meesha ka saaray. Markaana xog ku saabsan laba qodob oo isku raaceen madaxda maamul goboleedyada iyo qodob ay wadato maamulka Puntland oo la ogaaday. Madaxda maamul goboleedyada dalka ee shirka uu uga furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa isku waafaqsan laba qodob oo quseeya doorashooyinka Soomaaliya halka qodob kale ay Puntland gaar la tahay. Khudbooyinkii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka jeediyeen furitaanka shirka wada tashiga dhuusamareeb ayaa mid waliba waxa uu ku cadeeyay qodobka koobaad oo ah inuusan raali ka ahayn dib u dhac ku yimaada doorashada dalka iyo muddo kordhin loo sameeyo dawladda Farmaajo. Qodobka labaad ayaa isna ah inaysan doonin wada tashi lala galo qaabka ay noqonayso doorashada la qabanayo ee lagu bedelayo qof iyo codka aysan suuragal ahayn in xilliga ka harsan muddo xileedka dawladda la qabto. Madaxweynaha Puntland ayaa aaminsan in meesha laga saaro guddiga doorashooyinka qaran ee hogaamiso Xaliimo Yare lana dhiso mid cusub oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah kuwaas oo qaban qaabinaya doorashada soo aadan. Afarta madaxweyne ee Galmudug, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaan weli go'aan ka gaarin arinta guddiga doorashooyinka ee Xaliimo Yare waxaana madaxweynaha Puntland u dhow madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo taageersan inaan doorasho lagu aamini karin guddigaasi. Shirka madaxda maamul goboleedyada ayaa u midoobay qorshaha Farmaajo iyaga oo la saftay ra'iisul wasaare Khayre xilli maanta la filayo in ra'iisul wasaaraha dalka uu gaaro magaalada dhuusamareeb. Wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka helayno shirka ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyada dalka ee halkaasi ku shirsan in ay mowqif midaysan ka qaateen
qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo ee ah in muddada loo kordhiyo. Waxa ay dhammaan isku raaceen in madaxweyne Farmaajo aan wax muddo kordhina loo sameyn karin. sidoo kale wararka aynu halkaas ka helayno ayaa sheegaya in madaxda halkaas ku sugan ay la safteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. warar soo baxaya waxay sheegayaan in maanta ay suurtagal tahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu halkaasi tago si uga qayb galo shirka halkaasi ka dhacaya. sidoo kale warar kale oo lagu kala soonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu gadaal ka riixayo shirka ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug isaga oo doonaya in uu meesha ka saaro muddo kordhin. madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya in waqtiga loo kordhiyo balse Kheyre ayaa isagu waxa uu doonayaa in dalkan uu isku soo sharaxo inuu ka noqdo madaxweyne maadaama muddo 10 cisho uu ku maqnaa dalka Qatar halkaasi oo sida la tilmaamay laga soo dhaadhiciyay in uu dalka madaxweyne ka noqdo isla marhaantaana doorashada soo aadan uu tartamo mana doonayo ra'iisul wasaare Kheyre in waqtiga la kordhiyo. dhinaca kalena inta uu la eg yahay dakhliga ka soo gala dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la shaaciyay. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo khudbad ka jeedinayay furitaankii shirkii shalay ka furmay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrinta maqaamka gobolka Banaadir iyo canshuuraha magaalada Muqdisho ay ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab. Waare ayaa sheegay in canshuurta intaas leeg aan wax muuqda loogu qaban magaalada Muqdisho xilli ay la daaladhacayso amni darro iyada oo mararka qaarna martigelisa qaraxyo dad badan ay naftooda ku waayaan. Muqdisho oo magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dowladda gobolka Banaadir iyo al-shabaab marka la isku daro waxa canshuur looga qaadaa $1 bilyan sanadkii. waxa u dheer amni darro waxa kale u dheer rafaad kale oo dowladnimada iyo magaalo madaxnimada ku soo gaara ayuu yiri madaxweyne Waare oo sheegay in magaalada qof walba uu meesha uu doono uu ka joogo uu xaq u leeyahay. madaxweynaha Hirshabelle ayaana soo bandhigay inta uu leeyahay dakhliga dowladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho kaas oo ku sheegay inay gaarayso lacag kor u dhaafaysa $1 bilyan. duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa seeftiisa banaanka dhigtay xilli uu maalmaha soo aadan shaqada ka ceyrin doono gudoomiyaal degmo. sida xogaha aanu ku ogaanay waxaa jirtay in gudoomiyaal degmo uu duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish shaqada ka ceyrin doono saacadaha ama maalmaha soo aadan. gudoomiye Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda ayaa sheegay in isbeddello shaqo awadood ay saameyn doonto seeftiisa xilka qaadista gudoomiyaal fadhiid ka noqday howlihii loo igmaday. duqa Xamar ayaa sheegay in gudoomiyaha degmada Hilwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle uu ugu horeeyo mas'uuliyiinta xilka laga xayuumin doono. Cumar Filish waxa la sheegay in uu beesha uu ka dhashay Cabdixakiin Cumar uu wargeliyay inay keensadaan shakhsi kale oo booska gudoomiyaha buuxiya maadaama uu shaqada fadhiid ka noqday ninkaasi. Cabdixakiin waxa dhalay gudoomiyihii hore ee degmada Hilwaa Cumar Cabdulle Jacfaan waxaana saameynaya oo xilka qaadistiisa la filayaa inay soo dadajiyaan adeerkiis oo xil dhawaan looga magacaabay Galmudug taas oo beesha uu ka soo jeedo gudoomiye Cabdixakiin hanaanka qaybsiga xilalka diidaysa in uu xil markaasi sii hayo. waxaana sidoo kale la filayaa in gudoomiyaal kale shaqada laga ceyriyo. faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa sarkaal sare oo al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda oo toogasho lagu dilay. ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed oo howlgal sameeyay ayaa dilay sarkaal dhanka maaliyadda u qaabilsanaa al-shabaab oo lagu magacaabo Salaad Dheere. sida ay sheegeen mas'uuliyiin howlgal lagu khaarijiyay sarkaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Buulaxaawo galbeed oo ku dhow magaalada Bardaale ee ka tirsan gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya. ma jiro wax war ah oo ku saabsan sheegashada saraakiisha oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha hubeysan ee al-shabaab. dhanka kale ilaalada wasiir ka tirsan xukuumadda Kheyre ayaa si bareer ah wiil dhalinyaro ah ugu dilay magaalada Muqdisho iyo carag ka dhalatay dilka wiilkaasi. ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin dowladda Soomaaliya isla markaana ilaalo u ahaa mid kamid ah golaha wasiirada ayaa Muqdisho waxay ku dileen qof shacab ahaa. Maxamed Cabduqaadir oo ka tirsanaa shaqaalaha maqaayadda Zaytuuni oo Muqdisho ku taala ayaa lagu dilay qaybta Trebiano ee wadada Maka al-Mukarrama. dilka Maxamed ayaa yimid kadib markii ay ka shakiyeen gaariga uu watay ciidamo la sheegay inay ilaalo u ahaayeen wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya. dad goobjoogayaal ayaa warbaahintu xaqiijiyay in ciidankii dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen. laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli ma aysan faahfaahin dilka loo geystay Maxamed Cabduqaadir. waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan askarta ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo qaarkood ilaalo u ah madaxda dowladda Soomaaliya. ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska diiday inay garoomada diyaaradaha dalkeena ay ka degto diyaarad hub u siday dowladda Masar. diyaarad ka timid Masar oo sida xirmo hub ah ayaa la doonayay inay ka degto Soomaaliya bishii May laakiin 2000 oo AK-47 ah qoryaha
madaafiicda rida bastoolada iyo hoobiyaal diyaaradda saarnaa lama dejin waa la joojiyey ayuu sarkaal Soomaaliya u sheegay wargeyska la yiraahdo The Sunday Telegraph ee UK ka soo baxa sababtoo ah waxa laga baqay ayuu yiri in dawladda Soomaaliya ay lugaha la gasho muranka u dhaxeeya labada dal ee Afrika ugu awoodda weyn ee Masar iyo Ethiopia wargeyska The Sunday Telegraph waxa uu sheegay inuu arkay dukumeentiyo muujinaya diidmada dawladda Soomaaliya ee hubka uga imaanayay balse ma bixin faahfaahin intaas dheer waxay u muuqataa in dawladda Soomaaliya ay ka baqday in Ethiopia ay u aragto inay ku dhowdahay Qaahira sidaasina ku diiday hubka Masar si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadda labada dal waxayna diiday qaraaro ka soo baxay ururada jaamacadda Carabta oo ay xubin ka tahay kuwaas oo dhaleeceyn lahaa Addis Ababa Masar ayaa ahayd awoodda haysata Niil muddo 10 sano ah laakiin awoodda oo la ekaaday ayaa keentay in qulqulka biyuhu ay fogaadaan diyaaradda hubka u siday Soomaaliya oo lagu faahfaahiyay qoraalo dhowr ah oo ay heshay The Sunday Telegraph hadda Masar ayay ku sii nagaan doontaa wararkan wararkoodii xigeentan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo Audio Jungle.